بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال kusoo dhawaada wareysiga toddobaadka waxa marti iigu ah madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Nairobi kusoo dhaw markii hore TV-ga Universal Waare marka xiga waxaan jeclaan lahaa bal waxaanu ka hadlaynaa maadaama siyaasi aad ahayd dowlad goboleed shalay aad madaxweyne ka soo ahayd wadankii doorasho ay ka jirto madmadow iyo xoogaa hadalana ay jiraan doorashada iyo habka ay wax u socdaan waxyaabaha qaldan iyo xalka wax uu noqon karo ka hor intaanan u galin waxaan jeclaan lahaa madaxweyne Waare qofka rabo Hirshabeelle inuu joogo waa la ogyahay inuu siyaasi meelaha ka hadlayana waa la ogyahay ka hor maxaa ahayd waxbarashadaadii iyo dawladii dhexe Soomaaliya wax qabadkaagi wax la taaban karo bismillaahir rahmaanir rahiim xamdi adar aad u mahadsan tahay adiga iyo teamka Universal aadan idinka mahad celinaya aniga muxuu ahay ka hor intaanan muxuu ahay madaxweyne ka noqon dawladda goboleedka Hirshabeelle saddex meelood oo muhiim ah ka soo shaqeeyay dagaaladii ka hor waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda beeraha waxaan kamid ahaa dhalinyaradii muxuu ahay la siiyay fursad fara badan juhud badan la geliyay waxbarasho ilaa heer jaamacadeed dawladdu ay ka maalgelisay si ay mataqaanaa saldhig ugu noqdaan barnaamijka horumarinta beeraha gaar ahaan wax soo saarka kalluumaysiga iyo beeraha iyo xoolaha annaga waxaan ahay qaybta beeraha sidaasaan muxuu ahay waxbarashadeeduna saasay wasaaradda beeraha ku ahayd oo scholarship wasaaradda beeraha yaan Mareykanka yaan ku tagay markaan ka soo noqdana wasaaradda beeraha leen u shaqeeyay dagaaladii markay burbureen muddo 20 sano mataqaanaa kaba badan ba ilaa dhowr 20 sano waxaan ka shaqeynay samafalka iyo dib u soo kabashada 10 sano waxaan u shaqeeyay hay'adda Lanqayrta Cas oo Soomaalidu ay wada taqaano waqtiyadii sagaashameeyadii waqtiyadii gaajada ay ka jirtay Soomaaliya gaar ahaan gobolada Baay iyo Boqol iyo ilaa Gedo ilaa Baardheer xataa dhibaatada waa gaartay wubiyada aad dhibaato uga dhacday dagaaladii xamar waqtigeedii Mareykanka la digiranayo Black Hawk Down dadkii muxuu ahay dhaawacyada iyo mataqaanaa ka soo daldalay meelaha lagu dagaalamayo samafalkaas waqtigaasna yaan ka shaqeynay haddana waxaan ka shaqeeyay hay'adda la yiraahdo FAO ama hay'adda cuntada iyo beeraha oo United Nations ay leedahay kadibna waxaan madax ka noqday mashruuc World Bank oo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta lagu taakuleeyo tiknoolajiyada cusub keebalaadka xamar mataqaanaa wasaaradaha gaar ahaan madaxtooyada wasaaradaha jaamacadaha mataqaanaa Muqdisho siidan kulli internetka mashruuc galiyay waaye oo runtii Soomaaliya inay ka daba timaado adduunyada kale iyo mashruucaasuna iyadoo kooban aniga backgroundkayga waa kaas kadib waxaan qayb ka qaatay dib u dhiskii muxuu ahay iyo yagleelidii maamul in loo dhiso labadii gobol oo haray oo Hirshabeelle markii dambe isku noqon doono oo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waqtiga aan wasaaradda beeraha aan u shaqeynayeen waa meesha labada gobol aan madax ka ahaa waa labadaas gobol marka inay ayagu federaalka ka haraan oo ayagu ugu dambeeyaan runtii waa aadaan aniga shakhsiyan u dhibsaday dad badan oo runtii muxuu ahay dhibtana waa jira waxaad waagi oo madaxweyne ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maamulkaas la dhisay teamkii dhisay oo ergooyinka iyo dib heshiisiinta isu keenida iyo waxaasna qayban ka ah waa gartay inkastoo shalay madaxweyne ahayd haddana siyaasadda ku jirta laga yaabo doorasho lagu jiraan xataa xildhibaan raadinayso marka la fiiriyo sida hadda doorashada ay u socoto maxay kula muuqataa maxaa qaldan horta muxuu ahay xildhibaan haddaan raadsan lahaynba waxa horta ugu horeysa dadka wax dooranaya yihiin ma qabo muxuu ahay hadiiba hamigaas igalo jid wanaagsan iyo mataqaanaa habraac wanaagsan oo jifadii kursigaas lahayd ay qofkay rabto ku dooranayso aniguna aan wax ku weydiisto inuu jiro ma qabo marka taas shakhsiyan taasaan ka leeyahay laakiin guud ahaan runtii doorashadu sidii taa waa loo jeedaa Soomaalidu waxay tiraahdaa kor waa yeel waa wada indho waa loo jeedaa inaan qalad ku soconno sideedaba doorasho dhowr qodob laga rabaa si ay u noqoto doorasho wanaagsan koow waa in wixii ay faydan yihiin oo loo wada jeedo oo qof walba uu doorku ku leeyahay garanayo laakiin doorasho muxuu ahay suuq madooba oo ergooyinkii aan la garanayn oo meel ay wax joogan aan la garanayn
oo waqti ay dhacaysa aan la garanin oo mugdi badan ku gadaamin yahay waa qodobka ugu horeeya oo ciladu ay ka jirto qodobka labaad waxa waaye korjoogteyn madax bannaan adduunyada kale marka gudiyada ama komishanada doorashada election commission ama gudiyada la samaynayo oo anaga hadda meesha kuweyn ay uga jiraan waxa la rabaa gudiyo madax bannaan oo ka madax bannaan dawladda mucaaradka dadka wax raba dadka kuraasta laga qaadanayo ka madax bannaan oo ayagu farsamada kaliya ee ku hawshooda tahay hadda gudiyadeenii hadda sida yihiin leesu sheegi maayo siday wax ku wadaan iyo siday mataqaanaa hawsha ku bilaabeen iyo siday mataqaanaa arrin u marayso leesu sheegi maayo qodobka kale waxa waaye hadiiba khilaaf dhaco khilaaf kii sidii loo xalli lahaa haddana si cadaalada oo loo jeedo in khilaafkii lagu xalliyo runtii gudiyadu ayagooba ilaahay xaalkooda ogyahay haddana guddiga khilaafaadka hadda lagu sheegaa ugu liita sababta khilaafaadkii hadda soo baxay siday u handalgareeyeen iyo siday u wajaheen ayaa hadda midinkeeda leeyahay ayaa xun waxaa kaloo la rabaa dadka wax dooranaya oo qofka xildhibaankaa dooranaya ha ahaato doorasho dadban ama ha ahaato mid toosa waa constituency sooma waa dadkii wax laga rabay waa in ay yihiin dadkii saxahay waa in la garanayo waa in dadka xildhibaannimada rabo dhum ay access u leeyihiin oo aniga aan u sheega karo wixiga xildhibaanka kalena u sheega karo laakiin erga muxuu ahay waxaan ayaan dhaxdaas kilib aan ka arkay ergooyin lagu wado basas booliisku leeyahay oo basas booliiska fuula oo booliiska hore gadaal ka waardiyeyna oo hoolkii loo codeynayo loo wado sidii maxaabiistii oo markii soo codeeyaana laga keenayo oo guryahoodii lagu soo celinayo oo xildhibaan arki kara iyo xildhibaan cod weydiisan kara iyo mataqaanaa xildhibaan haddii midinkeeda la barnaamijkiisa u bandhigi kara oosan jirin markay qofay cod tahane waa degmada isku shuban doorashadeeda haddii afmadow lagu qabto ka war oo la yiraahdo doorashadii isku shuban afmadow bay ka dhacaysaa tanuna waa la mid jifadaanu kursigay lahayd dad kala u doodaa amaba dadkii jifadii naftigeeda iyagoo ah yaa si muxuu ahay aan raalli la isaga wada ahayn yaa qolo gaaro intay meel isu aruursato awoodda dawladda dabada la gasho sida hadda muxuu ahay kursiga hadda galmudug oo muxuu ahay ninka taliyaha kursigu ku fadhiyo waa laga yaabaa inay dadkii kursiga lahaa dad ka mid ah inay doorteen laakiin nabadoonkii waa la xiray beeshii inay shirto waa loo diiday muxuu ahay ilaas arka waa la diiday imaamkiyaa ka hadlay wax meel ka soo qaada lama arko marka dadka kursiga iska lahuna dadkii wax dooranaya inay yihiin ayadana muhiim waayo waxaasoo dhan marka la isku soo aruuriyo waxa kaloo iyaduna muhiima doorashadii waa inay leedahay jadwal la yaqaan ood adigu og tahay anigu ogahay doorashadii maalin hebelay bilaabane maalin hebelay ku eg tahay soo maa haddii duufaanu dhaco ama roob dhaco ama wax ay dhacaan oo ay baaqato haddana bulletin la soo saaro ila doorashadii meel hebel ka dhici lahayd sababtaasi u baaqatay waxaasoo dhan marka la isku soo aruuriyo ujeedada laga leeyahay waxa waaye waxa afka qalaad lagu yiraa equal opportunity macnaha equal outcome lama rabo yani lama xaqiiji karo aniga iyo adiga inaan isku waxeeleyno ilaa on labadeena qof baa soo baxay laakiin waxa la rabaa fursadaada iyo fursadeydu inay isku mid yihiin marka doorasho fursadaadu ay already ba intaan doorashada la gelin aad iga fursad fiican tahay inaysan wax muuqdahayn inaysan doorasho ahayn waa loo jeedaa laakiin aniga doorashada waxa iiga muhiimsan oo ka turjumaysaa war Soomaaliya sawti balanteenu ahayd dad ka soo kabanahay dagaalo talada aan isla ogaano aan tashano wada ogolaan ahaano war maxay sayinta ka tahay saan ma yeeli karaa Soomaha waa ujeedaa marka taladii waa la marorsaday hadda madaxweyne doorashada waa socotaa deegaanada qaarkoodna kuraasta qaarkood dib loogu laabanaa liiri haddii dadkii shalay cabanayo waxbaa la boobay lahaa la qanciyo oo dawladii ay leedahay waa soo dhaweyn in dib loogu laabto maxaa dhibaato oo madmadow gaar oo qalad adinka u fiiri doorashada dhowr jaranjara laga soo degay
markii hore waxaa la joogay doorasho xor iyo xalaala oo sifaadka aan sheegay leh ha dhacdo waa suurtoobi waysa lama hayo soo maaha haddana waxaa la yidhi war almiina doorasho heshiis lagu yahay macnaheedu maxaa waaye ciladba hala haato laakiin ciladan isla ognahay oo muxuu ahay inay ciladaasu jirto aan isla aqbalnay inaan wax ka qaban weyne aan isla ogolnahay sidii mataqaana looga bixi lahaana isla ogolaashadiina ma jirto haddana hoosaa looga sii dhacay waxaa la tegey war doorasho wax lee ha dhacaano marka maxaa ku jira waxaa ku jira fikrad ah waddankaanu 4 sano 5 sano lasoo dhaafay wixii uu soo maray iyo wixii dhibaato iyo wixii culays iyo wixii muxuu ahay systemka hadda siduu yahay cid moogu ama jirtaa bal doorasho hadday dhacdo kulley uun la waay maayo 165 cod oo damiir leh oo waddanku inuu halis ku socdo u jeeda oo waddankan badbaadiyo kulley la waay maayo yaa ka dambaysa haddana hoosaa looga sii dhacay waa la codeeyey waa la soo baxay waa la codeeyey waa la soo baxay wejigaa u duuban waa la soo baxay shalay ahayd waa la soo baxay everything waa la soo baxay soo maaha in kuraasta lagu mashquulo aniga waxaan u arkaa istaraatiijiya ay dowladdu wadatay inay tahay ujeeddaduna ay tahay yaan la fiirin big picture-ka in waxa weyn oo halaysan yaan la fiirinin ha lagu mashquulo kursiga muxuu ahay yaasiin farey kursiga hebelow ha lagu mashquulo markay qir gaarto ha la fasaxo haddaan kuu sheega warkayga meel ku qor kursiga yaasiin farey iyo kursiga jawaari waa la fasaxaa alaaqirka dambe waaba naqshadba ku kalena waa soconayaan 329 kursi maxay 2 kursi ka tahay markii labadan la daayo international community iyo dadkii iyo waxa loo sheegaa hadda wixii waa la xaliyo haya wixii cabasha ka timid Soomaa waa la xaliyo haya laba bariya xogaa lagu dagaa sheekadu waa meesheedii inay saas tahay maxad ku ogaanaysaa hadda Soomaaliland soo barnaamij sidii loo xanjaxanjeynaa Soomaaliland lama keenin hadda maanta maxad maqlaysay haddana waxa ka soo noqday khilaaf saasaa lagu soconaa marka aniga waxaan qabaa war meesha doorasho ma taale waxaanu intayna meel xun gaarin oo muxuu ahay ishurimayne ilaa dan naga wada dhaxaysa yaan ku ciyaaraynaa natiijo soo baxday intaan ka daba carari lahayn hadda aan tala meel dhigno sababta meeshan ku soconnaa meel fiican maaha waa gartay shalay 2 sano dawladda ku darsasho aad diideen oo dhahdeen waqtiga dhumaay hadda maalin kasta buuqa socdo waxaad leedeen waxa haddana hal xaliyo xalkii maalin kasta hadduu socdo doodina ay socoto 2 sano soo hadana ma tagaysa ashar diidaysin horta hal shay aniga shakhsiyan hal shay waa aaminsanahay horena waa u sheegay oo Twitter-ka waa ku qoray inkastoo dad badan ay ila yaabeen maxamed cabdullaahi farmaajo waa ka go'an tahay 2 sano inuu dhameysto aniga aqoonaan u leeyahay xaalad walbaan isla soo marnay wax walba waxa ugu muhiimsan inuu proof gareeyo 2 sano horta go'aankaas xataa inuu asugu madaxweyne soo noqdo waa ugu muhiimsan tahay meeshaas horta uga dhagan tahay hal la jiido 2 sano horta waa horta ku talagal meel dhigo in 2 sano ay halkaas ku tagtane dadkii markay kaceen oo laga gadooday muxuu ahay ku darsashadii oo magaalada waxaad ka warqabtaa ka dhaceen oo ciidan yimideen nimankii muxuu ahay qoolka ka sii daayay yaa horta 2 sano ansixiyay nimankaas mas'uuliyadeeda iska leh waa qolada badbaado qaran waa u galeynaa maalinkaas ay halkaas joogto oo 2 sano la diiday yay ahayd in 2 sano in la diiday oo rasmiya ila waa la diiday war maaha waa in la khitwaad macnaha stepskii la qaadi lahaa tallaabooyinkii la qaadi lahaa inayna 2 sano aysan dhicin
maalinkaasay ahayd in la isla meel dhigo waa la isla meel dhigi waayo soo maaha farmaajo degdeg ma qabo meel uma socdo shidaal kuma socdo koronto kuma socoto halkiisaasuu joogaa iska qayli adigu buuq twitter wax soo dhig raadiyaha lagaa wareysto shidanaaba shidan shidane yaaba shidan aday ku taallaa ninkaas taladiisu meelay u taallaa asaga taladiisa wareer ugama jirto inta kalaa waxaa la rabaa inay dhahaan war hadda saanu tala maahee maxaan yeelnaa waa gartay maalinkaas aad leedahay ay jaanis haysteen ma waxaad rabtay maalinkaas inuu dagaal dhaco nimankii la yiraahdo waa niman warlord dambiilayaal oo adduunyada loo aqoonsado qaswadayaal inay yihiin dhiig ku dhaco dad ku dhinto systemkii dawladnimadii wixii la isku soo duduwaay ay meesha ku burburaan ma taladaada ahayd fiiri horta qaswadaha qalada laga fahmay dadka shacabka ah waxay xaq u leeyihiin dawladooda inay petition ku sameeyaan petition waxa waaye inay cabashadooda u geeyaan oo idhaan waxaanan cabasho ka qabnaa hanala ka xalliyo okay cabashadaas marka la geynayaa dhowr hab ah dawladaha qaarkood joornaalkaba haddii lagu soo qoro oo la yidhaha wasiir hebel ama wasaarad hebel ama madaxweynaha prime ministerka dhibkaasaa laga tirsanaa madaxweynuhu wax kale iyadoo la sameyn asagaa investigation bilaabaa isa saxa hadduu isi sixi waayo haddana hay-ado waxa jira baara waxaas laga qaylinaa inay jiraan iyo in kale annaga hadda waxaan haysanaa madax haddii ay badankeeda leeyahay joornaal haddii wax loogu qoro inta isku xishooda damiirkooda gubo war waxa nala ka sheegaa naga sax dhaha maad ku ogtaa meesha waa maya haye ma hay-ado baara oo wasiirkii wax laga soo sheego ama prime ministerkii wax laga soo sheego ama taliyihii wax laga soo sheego baarahaad meel ku ogtaa waa maya maxaa ku xiga haddana in dadku ay bannaan baxaan oy bannaan baxaan hadda dawladdii waxay tiri ninkii bannaan bax dhafoorka xabad looga dhufanaa dadkii marka maxaa u furan marka adduunyada meelay ka jirto ma jirto shacabka xuquuqdaada ka tag shacabku waxay xaq u leeyihiin in alle intii dawladdu ay space bixiso oo kale inay bixiyaan dawladdu hadday hadal wax ku yeelayso waa lala hadlaa hadday banaanbax wax ku yeelayso waa lagu banaanbaxaa hadday qoray wax ku yeelayso qorayaa loo qaadanaa aniga hadda kelmad ku dhahayo hadda aniga qaswadaha layga dhigo haddayba sharci oo qofka xuquuqdiisa inuu raadsado diida hadduu jiro anaaba hadda dhahaaba qofku xaq u leeyahay laga soo bilaabaan ku yiri joornaal wax lagu qoro muxuu la banaan baxo muxuu leys abaabulo intiiba hadday dawladdu diiday magaaladii la yiri duufaan iyo dabayl iyo waxa lagu daadshay wax walba labadii qofood oo isku soo baxdaba qoorta laga gooyo hadda waxa la rabaa in international community-ga ayaguba waa ogeen wadamadooda ka jirtaa maalin walba France waxa ka dhaca waa aragtaa Ingiriis waxa ka dhaca waa aragtaa marka horta qaswade kelmadda la yiraa taariikhdeedu taariikh gaar ah waayo qofka qaswadahan ku sheega marka waxa qaswadaa ayadoo lay ogol yahay inaan bannaan baxo oo daljirka daxsoon intaan u soo baxo tabeelayaal soo daabacdo dawladda waxaan rabaa aan u sheega karo haddaan qoray qaato qaswadaanahay way faham Soomaa ayadoo dawladda markii joornaal wax loogu soo qoro baaritaan la sameeynayo oo wax dadku ka cabanayaan laga jawaabayo haddaan qoray qaato qaswadaanahay laakiin xuquuqdii muwaadinka oo dastuurku isiinaya haddii la ii diido oo qoray la iigu diido ogow aniga shalay anoo nin shacaba ah oo caadi ah oo iska shaqeysta yaan madaxweyne waxaan ka noqday Hirshabeelle muddaan madaxweyne ka ahaa waa ka dega hadda shacab Soomaaliya maxaa farqiga u dhaxeeya waxa farqi u dhaxeeya intaas yarta amaanadii la saaray Soomaaliya haddaan amaanadii la saaray iyo ballantii ka bixi waayo shacabku xaqay u leeyihiin si alla siday doonaan inay xaqooda ku soo dhacsadaan waxaa jira niman hadda musharaxiin ah oo laftirkooda han siyaasadeed leh oo dawladnimadii kursiga rabaan shalay qaar baa madaxweyne soo ahaa maalin kasta waa hadlaan
maalin kasta dowladdu waa dhaliilaan wax macno lahoo hadda gaar ah oo qaladaad weyn oo la leeyahay dowladdu waxaasay gaar u qaadanaysaana shacabkii oo u sheegi karaan uma jeedno laftirkooda maxay tahay doorka laga rabo horta waxaanu inay halaabaan mas'uuliyadda waa la wada leeyahay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo cid kastaahuna waa og tahay xod ogaalna waa loo yahay si niyad wanaaga oo qalbi furan marnaba doorasho kuma aqbalin horena uguma aqbalin haddana kuma aqbalaya soo maaha go-aan kasta iyo concession kasta iyo tanaasul kastoo laga keenane waa markii derbiga leesla tago qof muxuu ahay dentiiste goos laga bixinayo xanuunkeeda go-aan ahaa mar walba falaq laga siinayo soo maaha hadeertaane niyad same nin wax ku soo wada maaha awooddii dowladda iyo mataqaanaa musaacadadii international community-ga iyo legitimacyga iyo wixii oo dhanne asigaa haysta saasuu doorbiday ra-iisul wasaaraha ayadoo qir iyo qir laysku yahay dadkuna muxuu ahay laysku dhibaato qabo wixii la soo maray la xasuusto waddanka la xajeclo ma maqashay sheeko laba ninoo inta isku daashay war kala qabta ma maqashay oo ninkii kala yiri waa la aaminay waa la taageeray waxaa loo dhiibtay muxuu ahay walaayadiyaa loo dhiibtay madaxweynihii culeyskii la saaray darteed waxaa la yidhi wixii oo dhan iska keen waayahow yidhi asaf shadiid ra-iisul wasaarihii waa isqaadqaaday dadkii niyaddu ka soo riday cadaaladaan samaynaa haddii ebid intaan yeelaa kanaan yeelaa wallahi inayna waxaasu dhacayn inta ku dhac muxuu ahay hagaagaan samaynaa cadaaladaan raadinaa muwaadiniintaan u raadinaa ikraanaan u raadinaa kanaan u raadinaa aniga markaas waraysi aan bixiyey waa fiirsi kartaa waa la hadlay waxaan ra-iisul wasaarow weliba nimanka taladu kala dhexaysaan aqoon u leeyahay waxaasu inayna alaaqirka meel aysan fiican ku dhammaanayn aniga waa ogaa waxaan ra-iisul wasaarow dadka hala goynin waxaad dhahdaa nimayo ikraan waxba kama galo doorasho ilaa xad oon wixii lay dhiibaan ku ekaay moogi wax badan kama galo dadka qalbiga ha ka soo ridin farmaajo wixii ilaahayna kala siiyaan leenahay laakiin adigu intaad tusbax noo soo qaadato wadaad iskaga soo kayn dhigto nin qalbi jilcan iska dhigto hana hoosaasin hadda wixii oo dhan waa qaaday farmaajo mataqaanaa yo faraqa ugu shubay aniga waxaan la yaabanahay dadka hadda dhahayo shir maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha iskugu yeero ra-iisul wasaaruhu habeen dhaweed madaxweynayaasha maamul goboleedyada isugu yeeray kuwii doorashadan hadda aan ka qaylinayna bilaabana waa u tahniyadeeyey saddexdii ku dhiman tahana waa canaantay wuxuu yidhi doorashada bilaaba waana mataqaana haddii bidinkeeda leeyahay waxaad tihiin mukhaalifiin saasuu yidhi ninkaas mowqifkiisa miyaa mugdi ku jira isaguna dadku xuquuqday lahaayeen oy u qoray qaadeen oy ka bannaan baxeen oy waxaad og tahay ka dhigeen mirihii inay miro dhasho asagaa daba marsiiyo maxaa ka rabteen ra-iisul wasaaraha marka xukuumaddan xilgaarsiinay ahayd shaqadina waa socotaa maxaa laga rabay intuu yiri le adiga cajalad gadaal u dhagayso xabsamiya ku socone lees xoogi maa lees handadi maa qof walba xaqoo u leeyahay jifooyinka waxay dooranayaan dadkooday dooranayaan kuraastooday dooranayaan soo maa odayaal cusubaa la qorayaa fiir aniga doorashada waxaa igala dhib badan fitnada ummadda laga dhex samaynaa sababta oo ah waddankan farmaajo ma xukumo rooblana ma xukumo waddankan dhaqanaa xukuma dhaqanaa lagu kala joogaa oo in ummaddu ayna islayn oo wixii dadka kala gala u kala qaada odayaashii dhaqanka haddii la fidneeyo oo ninkii intaas qabiil soo dhaqi jiray inta laga qaado
mid kale lagu bedelo hadda doorashadanu beriyay ku egtahay qabiilkaas fidna ma la dhaxdhiga mise lama dhaxdhigay aniga cabsi waxa igu haysa raadka meeshaan ee waxa ka dhala doona soo maha waxaas ma dhacayaanuu yiri odayaasha haddii badankeeda leeyahay xataa qaar uu la kulmay ogaashiyo uu la kulmay ballanqaadi u sameeyay waxba halaabi maan wixii waa socdaan marka aniga waxaan qabaa nin haddii badankeeda la wanaagsan oo ahlu diina oo ahlu taqwa oo tusbixiisa wata soo rooble anaga imagekaas nama tusino mas-uuliyaddii asaga lama saarino waddankaanu meel xumo ku socdaa waddankaanu meesha ku socdo wixii nool waa ka sheekay doonaan warkayga dhageyso aakhiriya adduun asaa loo haystaa aad uga gaabiyey not only inuu ka gaabiyo keliya maaha mas-uuliyaddii asaga loo dhiibto loo aaminay ayuu ninkii laga soo gacan maroojiyey oo sidaad og tahay looga soo gacan maroojiyey yuu ula tegey oo yiri waa kan wixii haddana adaan kugu soo celishay oo madaxweynaha dow yahay maxaa loogu kacay oo waxaad og tahay u dhaceen oo talada looga wareejiyey oo la yiri murashaxaad naga fadhiiso oo asagu ku aqbalay oo baarlamaanka hortiisa uga yiri markaas madaxweyne ma ahayn miya danaa keenta maaha dantii keentay oo asigoo madaxweynahaasad sheega soo ah taas keentay sow asagu wixii kalama furin oo meesheedii kuma celin hadda jidkii gadaal u raac maahano doorasho haddii qalalaaso uu galo hadda Kenya doorashadeedii waa lagu laabtay waa ogeyn maxkamaddii dastuuriga anaga ma qabno maxay kula tahay xalka muxuu u muuqdaa horta sideedaba waxna waa talada guud waxna waa tafaasiisha annaga hadda waxaad moodaa naqshada dawladuna ay tahay in tafaasiisha lagu mashquulo kursi hebel la isku haystaa kursi hebel la isku haystaa saasay rabaan waxa naga hal kuraasuna tafaariiq ay ahaadaan maalin walba afar la soo deeyo weliba fiiri حتى نقشد كراست لو سو دينا نقشد دكسن واي كرسي والب كرسيغو كدب بدن يهو laga cabsi qaba la soo hordhiga waxa leeyahay weesha gowrac dibigu ha ku qoos qaatay hadii badankeeda leeyahay tuur yare iyo bataqana ninkii xildhibaankii hore Cabdi Cali Geesi kursigii ku fadhiyay nimankaada geedo oo aan hadda aan magacooda wada garanaysaa kursigoodii hadii la qaatay masaakiintii maxaa u yaal waxawaay dibiga gowrac weesha gowrac dibigu ha ku qoos qaastay saasaba shan soo day afar soo day laba soo day saddex soo day jiitankiina waa ku jiraa oo labadii sanana waa la gaarsiinaa labada sano markay dhamaato laba miday noqoni farmaajo inuu qol madow galo haddaba yaa ku haysta haddaba xildhibaanada la doortay yaa ku haysta yaa ka daba qaylina waa laga daba qayluha laakiin yaa wax ka dhihi kara xoogayga fiir Soomaa guudna saasoo weel intuu qol galo adaa lagu doortay Soomaa hadday dhacdo asigoo muxuu ahay waqtigii ka dhamaaday war laba sano yowna san dhicin ii sheeg yowsan gaab dhicin hanoo sii joogo intaa yarta hanoo sii sano waxaad og tahay laga maree mandate cusuboon raalli laga ahayn say kula tahay inay noqonayso fiiri doorashadan nimankaanu waxay sameeyeen aan ku sheega nin baa gabar reer u joogta boobay gabadhii waa laga daba baxay reerkoodii waa ka daba baxeen qoraya afka laga soo gelshay ninkii maya reerkii gabadh u socday gabadhii soo xoog loogama haysto reerkii waa yaabeen waxay dhaheen gabadhii masaana ahaa soo warku xabad ma jooga haa war almiina waa yihee gabadha maba kugu haysanee nagala xaal ma kaala xaalayo waa haddana jidkeeda wadadeeda soo mar haa ma kaala xaalayo ها من قال حالي سوماها هلدي قبرته قارو la dilay
qaar la dhaawacay qaar la xiray qaar la caayay laga dhigay ayagaa daalac loo raacday intay yaabeen yay soo noqdeen yaa kuwii ugu caqli roona waxay leeyihiin war almiino gabadha aan kugu nikaaxno oo almiino sharci ku qab gabadhii ha lagugu nikaaxaa ninkaan laga baryo hayaad doorashadii waa boobay dadkii ka daba baxay afka qori laga soo gelshay wax la dhihi kara lama arko waayahe waaba u jeednaa siday arrintu talada ku socotee almiino wixii aan kula qurqurxinno ninkii calaf u lahaa aa helaaye ha ka yaabin haddii marka la doorto waxaa dhacaa gabadhaas xoogga lagu soo boobay oo ehelkeediina muxuu ahay qaar la dhaawacay qaar la dilay qaar la caayay laga dhigay nikaax fiicanna in xataa in lagu nikaaxana ninkii diiday asagu inuu dhaqo lagama rabo gabadhaas in la dhaqo oo reer noqoto oo lagu qaboobo oo ilmo dhasho lama rabo waa arkaynaa madaxweyne adi shalay ahayd dowladdan hadda aad dhaliilaysidna shalay waa la shaqaysay oo dowlad goboleeda madax ka ahayd kursigaaga maxaa kusoo weysay fiiri horta sideedaba qofka muxuu ahaay markuu mas-uuliyad haayo su-aashaas dad badana twitterka iyo iigu soo qora waxay dhahaan niyo madaxweynaha markaa ahayd ma hadli jirin ma hadashid maxaa u hadlaysaa fiiri marxaladda mas-uuliyadda iyo marxaladda xorriyadda waa kala duwan yihiin adduunyada waa aragtay xataa reer galbeedka qofku markuu jagadu haaya ka dego iyo buug qoraa ama waraysi bixiyaa wuxuu soo arkay waxay la qaldaneed soo maaha obama soo ma arag buug qora uu leeyahay afghanistan taladaas iyo taladaas wallahi saasaa ka fiicneed maalinkaas go-aankaas waa ku qaldamay soo maaha qofku markuu marka mas-uul yahay sideedaba hadal loogama baahna waxaa looga baahan yahay marxaladaasu joogo seexeega lagu xigtaa ilkana ku nabadgalaan war mataqaana aqalo dararayn labadan dhibdhibkee yar labadan dhibdhibkee yar soo maaha tan kursiga nimankaanu laba naqshadooda isu dulfuusha naqshado waxa waaye federaalka sideedaba inay baabi'iyaan oy nuxurtiraan soo maaha intaan la nuxur tirinne daday isfahmi karaan yaa inay meesha geystaan intaas u dhaafi maa aniga marka ninkii meeshaas muxuu ahay federaalkana lagu dul baabi'i lahaa waxyaalaha qaarkoodna tafaahum lagala samayn lahaa inaanan ahayn darteedan aniga iyo raggii ila mid ahaa oo xeef ka mid yahay oo raggii kaloo iga horreey ka mid yahay kulli isku wada midaan qofka duwan ma jiro waxa waaye amaad sidaan raba yeele maya haya soco iska bax awoodda dowladnimada awoodda muxuu ahay maaliyadeed midda amni midda si kastaba lagu isticmaalo marka dambe adiga shakhsiyaad tahay shakhsi iyo dowladna dowlada adag dowlad goboleedyaa dowladdii federaalka ay ka samaysan tahay hirshabeellaa jirta koonfur galbeedaa jirta galmudugaa jirta puntlandaa jirta jubbalandaa jirto madaxweyneyaalay leeyihiin haddana dowlad goboleedyadu isku miisaan ma ahan marka meel lasoo fariista marka hala hadlo tagto markii wax la raadsanayo maxay tahay sababta dowlad goboleedyada laftirkooda aysan baawirkooda u sinayn horta duruufo badanaa jiro duruufo badan yaa jiro oo runtii haddii laga sheekeeyo duruufaha dakhliga duruufaha juqraafiga deegaankaasi meesha ku yaallay caasimadda u dhawaashaheeda haddii ay badankeeda waxyaalo fara badanaa jiro maamuladan hadda koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo muxuu ahay dekadooda waa xamar maamulada kaleeto dekado ayaga madax banaanay leeyihiin dhaqaalay haystaan laakiin halka shay oo waxaas dhan si asaasiga aan ku sheega shacabka waaye shacabka hirshabeelle iyo galmudug kaftanna waa ula hadlay si toosana waa ula hadlay shacabkaas aniga waxaan aaminsanaha يعني صبرك زائدك oo wax walba u dulqaateen beeraleyda reer koonfurka maahay qabaan waxay dhahaan sabarkaada hadduu bato soodintaaduu lumiyaa
حدود بيرتا aad lahayd waa maalin walba lagu soo durkaa maxaa laba tilaabo le maan ku diriri karnaa maanta asiga ma jeclaysananaha iska sii maalinka beertaada saasi ku maqan tahay waxa dadka xamar degan iyo dadka Hirshabeelle degan iyo dadka Galmudug degan ay u dul qaataan Soomaalidu way iskaftan taqaanaa way iska wada warqabtaa cid u dul qaada lahayd ma jirto xamar waxa ka jira ani markaan fiirshi intan la yaabay yaan waxa ere war waxaanu sabar maahe dadka magaalada biyaheeda ma wax loogu daraa qofkuna wuxuu aqbalo waa ku timbraysan Sooma marka saasa malaha Ilaahay u dhaliyay arinta Hirshabeelle madaxweynaha sharaka ahayd deegaan ahaan waa ka soo jeedaa Hirshabeelle markay dawladda guud hadana waa Hiiraan iyo Jowhar mararka qaarkood waxaad moodaa in beelihii inkastoo beelo badan ay degan yihiin hadana labada beelood ee awood qoybsiga ku tartamaya in xoogaa ay isku dhagan yihiin maxaa adinka reer Hiiraan ahaan tabanaysan oo gaar ah fiiri Hirshabeelle horena waa uga hadlay problemka Hirshabeelle ka jira waa problem ka soo bilaabday dhismihiisii laakiin waa wax la xalli karo waxa la xalli karo hadda midda kale Hirshabeelle nasiib waxay ku nasiib daraatay markii la dhisaayane doorasho lagu dhax dhisay doorashadii maxuu ahay 2000 ayay dhisantay markaas xildhibaanadeeda space politic bono reer hebel waa dhibaan ugu dar reer hebel waa dhibaan ugu dar yaa lagu dhisay ha Soomaa waqtigii mandate-kii termkii koobaad dhamaadana haddana nasiib darro doorasho kale ku soo aaday waagaas waxayba iska aad mataqaana reer hebel kursi iga sii iyo reer hebel kursi iga sii ninkii hadda Ilaahay kursi zaid oo alfa waa dad reer Shabeelle degan maba dhib maba lahaateemba hadda doorashadan dadkiiba la isku diroohaya adiga xudugaalaad u tahay qof mataqaana journalism ku jirto oo siyaasadda ka warqabtaa tahay xudugaalaad u tahay maxaa Hirshabeelle labada beelood oo degto oo xawaali abgaal ama maxuu ahay beledweyne iyo Jowhar maxaa colaadhood ku ogtaho oo dhaxyaal oo colaad beeleeda oo colaad dhaqana dadku sideedaba dhaqana wax lagu saleeyaa wax ka dhaxeeya oo isku haystaan haddii ba dhib jiro labadooduba waa dhib yihiin oo baarlamaanka aragtay oo 99 xubnooda kuwana 14 ay ku leeyihiin kuwana 15 labadoodu la isku daray waa hadii waa labada beelood ugu weyn oo la isku daray 29 xildhibaan ay ku leeyihiin ayagoo fadhiya yaa baarlamaanka Hirshabeelle intuu shiro wuxuu doono uu ka gaari karaa Soomaa marka hadii ba dhib jiro waa dhib wada haysta Soomaa meeshii marka dhibkoodii inay space la siilaha ay ka wada hadli lahaayeen maalin walba ayagii fidnad yaa la sii badina deegaanka waa ka soo jeedaa dad wax bartay leeyihiin siyaasiyiin ay leeyihiin marka deegaano la dhaho madaxweynayaal xataa ka soo jeedo hadda waa arkaysa arrintii Puntland ka taagneed sida ciyow waxgaradkii iyo uga istaageen dadku dhaqan ay leeyihiin golo guurti ay leeyihiin marka dhibaato timaado oo siyaasadda xataa aan ka marnayn aaw kuwaan dadkoodii kuwaan dadkoodii waa joogaan inkastoo hadda aad moodo mataqaana dadkii isku level ila masiibo koraa wada haysata hadda waxa Hirshabeelle ku habsaday hadda Puntland waa ku bilowdeen ismadii naftigooda oo hadii badankeeda leeyahay Soomaaliyo dhuma ay nimaali hadda kor wax laga inuu feera adan ku xilhay nimankii la lahaa almiina iyaga ugu xilroon go'aankay qaateen naftigooda waad aragto shalay aniga kulay shakhsiyan inkastoo arrin oo odayaal ay ka hadleen ay tahay oo aanan rabin inaan aad mataqaana aan u dhaxgalo haddana ciidan Puntland leedahay oo waxa dabaabaad iyo mataqaana hub iyo wiilal hadii ibn tababaran meesha jooga intay la xajacla intay ka gasho la dhihi lahaa warnimayaha madaxweynaha taladiisiina ha socoto waxaanu naga kala daadinayna ciidankaanu hanoo wada jiro in la yiraahdo hal kala qaato oo ciidankana shakhsiyaada leh hubkana shakhsiyaada leh kana shakhsiyaada leh go'aankaas go'aankii baxoo ahay labada islaana cunugu isku qabsaday tir dhaxta laga gooyo kala waay
ujeedada dhan oo la isku haystay ciidanka inuu badbaado laga la xajeclaado ma hayno marka horta hadda waa la sinmi rabaa waxa loo sinmi raba kalena wax kala maaha isku duruufa haysato kulligood isku duruufa haysato sideedana qof oo waxyi ku soo degaa ma jiro dadku inay tashtaan waaye reer Puntland hadday siday u tasho jireen ayadoon kor culays ka fuulin hadday tashtaan hubaal waaye talada meesheedii saaraya walwal kama qabo laakiin markii culays ka weyno dawladeed fuulo oo dawladii dhammeed oo xamar joogto culayskeedii ay dusha ka fuusho taladu waa ka kala wareeraysaa laakiin Hirshabeelle waa u sii dheerta reer Hirshabeelle inay muxuu ahay imaam maxamuud nin ka karaamo badan oo ka odaysan oo ka degan oo bini aadam intii sifo wanaagsan lagu sheego madaxmarka ogtaa tira ka 2 jeer meemo 3 jeer ayaa meel checkpoint ayadoo baabuurkiisa la yaqaan lagu xabaday bal karaamo darrada intaas la eg haddii imaam maxamuud lagu sameeyna cid la dhaafayay taa oo hadda sharaf loo hayo marka adeerow meeshan wadankan meel xumo ku socda ilaahay ha naga baxsho aniga ayaamankan waad aragtay yani siyaalo aanan u hadli jirinaan yaan u hadlo haya waxa igu kalifa waxa waaye yeyna wax kugu baaqan iyo hadal dhihi kartayna kugu baaqan meeshaas hadii la xajeclo ay muxuu ahay ay dadka hayso meel xumay ku socotaa hal qabto maxaa tala oo siin lahayd ra'iisul wasaarihii wadanka xukuumadda xilgaarsiinta ahaa madaxweynihii laftirkiisii nimankan hadda shalay badbaado qaran la baxay maantana maalin walba hadlaayo oo cabashadooda igana maalin kasta ama idaacadaha ka hadlaan ama meel wax ku soo qoraan qayladooda aysan dhamaanayn iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed maxaa talo dhihi lahayd warsaana Soomaali ku wada joogi kartaa madaxweynaha aan ka bilaabo madaxweynaha waxaan dhihi lahay madaxweynuhu wixii dib intii nagu dhac waa nagu dhacday wadankan haday la xajecla ka hayso oo inaad Soomaalinimo sheegato la xajecla ka hayso oo adigu hadaad dhimato ilmahaadu hadda dibadda jiraan ay wadan Soomaaliya liiraahan ka nimid ay dhahaan oo lagu xasuusto waad ogtahay hadaadna ogeyn wadankii kala tigidoo ku jira sheeko weyn waayo hadda waqti uma hayna gelimayno aniga waxaan qabaa Soomaaliland saasay ku goosatay shakhsiyan rajo kama qabo Soomaaliland iyo Soomaaliya inay isku soo noqonayaan waana sheeko dheer oo waa u geli karnaa waqtigeeda kuwii kale tan waa si kala tago hayaan madaxweyne wadankan asigoo la isku kabkabahaad u timide almiino adigoo isku haya lagu yimaado ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay ra'iisul wasaaro tabartaadu intay la egtahay waa aragnay tabar la isku manno anigaan inta lay tabar sheegtayaan gacmaha taagay nabad Allah yeelo Hirshabeellow soosaas maaha nabad Allah idin yeelo tabar ceeb maaha laakiin waxaa ceeba in lees hoosaasiyo in dadka been loo sheego in waxaad qaba karin waa qaba kara aad tiraa ina tiraa muxuu ahay gacantayday ku jiraan ina tiraa wax walba waa hagaagayaan waxaad tiraahdaa anigu hadda waxyina kugu soo degi ma shakhsiyad cusubna ku imaamayso umaleeyma meeshay hadda wax joogan inaad wax ka bedeli karto si niyada haddii ay idankeeda leeyahay waxaad u tiraahdaa nimayow saanay tala noqotay tashada nimanka murashaxiinta dhowr ilduuf oo qaarkood niyad sami iyo wadankoy u naxeen iyo haday doontaa ku timaado yay sameeyeen koow si marka loo saxo waxaan dhihi lahaa war horta doorashada waxa farmaajo waxay ishayaan waa adika nimanka kursigiisa u taagan waa adika doorashada stakeholderska nimanka ka waa adika maamul goboleedyada maaha maamul goboleedyadu wixii dadka murashaxiinta iyo civil society iyo beesha caalamka iyo shacabku wixii ku heshiiyeen fulintooday leeyihiin maahana ayagu dan gaara male
waad ku qaldanteen inaad kursi dambe fuushaan oo aad tiraahdaan doorashadii maxaa laga soo sheegay ra'iisul wasaare muxuu sheegay qorqor muxuu sheegay ali gudlaaw muxuu sheegay inaad tiraahdeen dadka kuraasta u taaganoona adika aad tihiin waad ku qaldanteen weliba fursadii markay miiska idii soo fuushay oo kacdoonkaad ogeed oo dhacay oo madaxweynaha uu diyaar u noqdo inuu miiska yimaado inaad aamintaan ra'iisul wasaaraha oo wixii oo dhan u dhiibtaan oo hubkii oo dhan asaga u dhiibtaan ilduufay ahayd talada haddaad badi laheedeen oo dad badan oo arrintan daneeya aad la tasha laheedeen waa laydii sheegi lahaa sababta oo ah si kasta qofku hadduu uu niyad wanaagsan yahay mas-uuliyaddii adiga ku fuusha aday ku fuushaa baadiyaha waa la dhaaniyaa dhaan meel fog ayaa biyo laga doonaa haddii muxuu ahaay dhaan 3 maalmood sii maqnaa anoon wadin intan reerkii u imaado aan iraaka waran wallaahi dhaankii xamdiyaan ku ogaay سيد أوغاني دانك أدا مركز تلدي إن رئيس الوزراء إلى حد كسكوري جسان ماهين حد مركز وحلا ذيك الربا لما يوم ماشان دورشة كما جرته هداد إسليدهين دورشة إيمانيس هداد إسليدهين وحباد هذا كنفتجين وكيليسين هداد إسليدهين وحيالك عليه حتى حن وحجر تقار كمية وحلا ليها وين أدي كان بإيده وضنابة دولة بلان بي أدنوتين إنما كان بلان بي ما بيغانين بلان إيه بلان إيه بلان إيه سوما ما بلان بي مقران نمك قمارك ونمك وين قمر جيشة وحد يلان قمار ليرا all in وحدن هالمران دجانا أما هالليجان أما هلو وروح أسقروا جاس يريداس أنت تسكت نافتان إن ودن كان أديك مدحوينيال أن ربنا يري ستيك هولدرز أديك أحد ثلاثة لنعيد القبصة أو واحد صعدة جوجية هذا أبدين قرشة إن دولة ولد لسان متكلا أكجرب لسان مايا فيري دولة لسكم ما هيستو دولة واجرتها وحكومة وزارة دي هي أجرو رئيس الوزراء أجرو أسقي إلهي سوى هو ذكر هو الدولة واجرتها واحد دولة اسكو هيسته مجران عيد مدي واجران طلياش واجران نارتيف كان لليه الدولة دي القلقلة واقل دنيا وحل اسكو هيسته هو الدور الشديد دور الشديد السيستم كي وحكوا ذا نمن كانوا هدي وحكب الدلي ويان وقصب والسيستم كلا لقى أقدسها ما حد عاي واي لو محل لو قدين عدي سوى ما حد على كرا مركز وحد على كرا لبا متكود إن إلهي إنما كان هداية أنتو كسود دجيو محوها هاي إن هدنا اللي يسكسون نقده أو حق الدن للصحة إيه وطن كوان وانا جوضة الحياة أديك كرامة جاره كم فوشو أديك الشلي وحمد خوينا لقاعد دقي بابورا لجوجو كاني هولاد كشي سوماليا كو على مسارتي ساسد مدحوينو كو نقطي كونترادي waa ka dhamaatay waqtigiisa Soomaha waxa xaq ku siina inaad 15 milyan dantooda ku qamaarto oo adigu saaranta ka yeesho xaqaas intuu kaaga yimid ad malaa'ig ma tahay wali ma tahay boqor ma ku dhalay aabaha ma boqor ahay boqortooy miya waxa maya tala aan isku darsana ma ahano taladii haddaad la leexato waa lagu la qabsanaa wala loo soo celiyaa lagu leeyahay waa mahadsantahay inta ayaan gudahaan ku soo gabagabeynaya waraysiga toddobaadka waxa marti iigu ahaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Nairobi waa mahadsantahay waqtiga qaaliga iyo waraysiga toddobaadka oo nagala qayb gashay